xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xarunta dowladda hoose ee degmada Burco ayaa markii ugu horeysay ka hadlay heshiiskii ay wada galeen maamulka dowladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale shirkadda Dayib ee maamusha kawaanka xoolaha lagu qolay magaalada Burco oo ahaa mid soo jiitamaya khilaafkooda muddo. Xogayuhu waxa uu sidoo kale fariin adag u diray hiliblayaasha aan ariga ku qalin kawaanka xoolaha ee magaalada Burco waxaana ka mid ah hadaladiisa sidatan. maanta taariikhdu tahay 26 bishii 3 2018 waxaan halkan u sheegaynaa maadaama ay heshiis saddex geesood dhacay wasaaradda xanaanada xoolaha taanu nahay dowladda hoose iyo shirkadda Dayib heshiiska saddex geesoodka oo dhawaan dhacay oo aan isku fahamnay oo qolo walbana wixii ay xaq u lahayd ay soo bandhigtay dabadeedna aanu go'aamo isla qaadanay waxaanu doonaynaa maanta halkan uga sheegaynaa dadka caadaystay sida qaalibka ah in ay xoolaha ku qalaan suuqyada magaalada Burco laga bilaabo maanta in ay mamnuuc tahay qofkii ku qalaa neefkiisa waxa nooga meel yaala inaanu dhakhtarka iyo jeelka ku caawino oo lagala wareegay isagana la ganaaxo waqtigii xilligii roobkaynu galnay insha Allah taala inagu soo foole caafimaadka magaalada iyo ummadda population-ka ku nool uma fiicna xoolaha waxaanu ugu tala galay kawaanka xeradhiig ee cusub kawaankaas oo heshiiskiisa uu dhawaana dhex maray shirkadda Dayib dowladda hoose iyo xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama heshiiskaasi dhamaaday oo wixii aan ku kala fikri aragti duwaneen uu dhamaado isla meel dhignay oo aan isfahmnay oo aan isla qaadanay ma suurtoobayso ma dhacayso in suuqyada magaalada Burco sida dadka iminka badan ay caadaysteen in lagu qalo xoolaha hadduu neef geela yahay iyo hadduu neef ariya yahay ciidanka dowladda hoose waxay ku amran yihiin halkii lagu qalo inta laga qaado in maxaabiista jeelka la siiyo ama dhakhtarka dadka xanuunsanaya la siiyo. Cabdullaahi Xudayfi, Ariel TV, Burco.